barnaamijka xusuus reeb oo aad uga barateen had iyo jeer in aanu kaga warano sidaan horeba idinku sheegay waxyaabaha dhacdooyinka xagga taariikhda ah ee soo maray dhulka Soomaalidu ay degto 60kii 50kii ama 40kii sanadood ugu dambeeyay oo ay dhaceen waxaan hore Soomaalida u soo marin ayaa waxa had iyo jeer aanu marba ku soo qaadnaa cid ay noola muuqato in taariikhda ay wax ka xasuusan yihiin ama ay goobjoog ka ahaayeen barnaamijkan waxa marti noogu ah Maryan Xaaji Cilmi oo aanu barnaamijyo hore oo xusuus reeb iyo qaar kaleba ku wareysanay oo aan idinku cusbayn Maryan waxa barnaamijkan aan sida gaarka ugu soo qaaday ugu sababa waxaan ka helay marka ugu horeysay magaalada Hargeysa oo fursadii noqotay marka labaadna taariikhdaanu ka sheekayn doono ayay ka ahayd goobjoog ama dadkii ugu waroonaa ee amuurtaas iyo goobjoog ka ahaa waxaana ahayd markii la laayay wadaadada ama culimadii 10ka ahaa 1975 magaalada Muqdisho oo oran karo waxay ahayd fidnadii ama aafadii ugu horeysay halkii laynaga soo raacay ee keentay burburka baaba iyo wixii ka dhacay intii ka dambeysay dalkii loo oran jiray Soomaaliya Maryan Xaaji Cilmi iyaran taariikhdeedii ka xasuusiyay beledweyne ay ku dhalatay waxay wax ku baratay oo ay ku barbaartay magaalada Muqdisho waxa kamid ahayd gabdhihii farakutiriska ahaa ee nasiibka u yeeshay in waxbarasho dibadeed ay u baxaan oo heer jaamacadeed ah Talyaaniga ayay wax ku soo baratay waxa ay soo baratay culuumta siyaasadda ama political science markii ay dalka dib ugu soo laabatay horaantii 70-meeyadii waxa ay noqotay macallin ama lecturer kulliyadii ama macadkii loo oran jiray Siidam ee lagu baran jiray maamulka iyo maareynta ee ku yaalay magaalada Muqdisho 1972 waxa la sameeyay oo dawladii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxweynaha u ahaa ay bilowday ururkii ugu horeeyay ee haweenka Soomaaliyeed ay yeeshaan Maryan la fahanteeda ayaa gudoomiye ka noqotay 1975 waxa dhacday amuur taariikhi ah oo aan doonayo aniga Maryan inaanu ka wada sheekaysano waxa inta dheer Maryan Xaaji Cilmi xagga siyaasadda ka sakow waxa weeye marwada madaxweyne ku xigeenkii dawladii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxda u ahaa ee Ismaaciil Cali Abukar marka horta mar labaad Maryan barnaamijka ku soo dhawow farxad bay tahay inaynu hadana mar kale halkan iska helno waa mahadsantahay taariikhda hore waan malaha dhameeyay qaybteeda hore inaan ka sheegay waxaad ku dari kartaa adaa ku dari laakiin waxaan jeclaan lahaa dhacdada xeerka qoyska wax la yiraahdo iyo haddaad haweentiin idinka daraadeed bay nagu gaadhay annaga iyo wadaadada wala nagu laayay sax marka halka ay ka soo bilaabantay iyo salaad ku keenteen maxaad ka xasuusataa maxay ahayd dhacdadaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حسنتهي أديكو الدعاء ولالكي صاحبكي waxaan mahad u celinayaa TV-ga Home Cable oo aan aad iyo aad daawadaha ugu weyn ugu horeeyay aan ahay on really sympathizer aan u ahay barnaamij kale ma fiirsado iyo anigoo maaragtay ka noqday macaamiil maxuu ahay Home Cable waxaan salaan u dirayaa ummadda Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan qodobkan maanta aan u fadhino runtii aad buu ugu duwan yahay qodobadii hore aan ducaalo isla soo marnay waa qodob aad xasaasi ah oo maaragtay xusuustayda aad ugu talaalan waxaan jeclahay cumrigan maanta jiro maalinta dhacday ilaa hadda weligeey maskaxdayda kama ay bixin oo waa wax maaragtay igu qafilan sida taariikhdeeda u sheegtay markaan soo noqonay oo ururka haweenka la dhiibay anigoo maaragtay gabar dhalinyaro oo muxuu xalana ka soo baxday oo aan istusaalay inaan maaragtay ragga maaragtay aan ka karti badnaan karo ragii aan xalana ku wada jirnay Maxamed Xaashi Cilmi Maxamed Xawaadle Ismaan Jaamac ma gartay Xasan Keyd iyo rag badan baan ku wada jirnay marka waxa la yiri muxuu ahay gabdhii Soomaaliya ragii wayba ka horeeyaan arrinkaas ayaa waxay noqotay in ururka haweenka anigoo macallimad caadi ah oo af Soomaaligana aad igu yar yahay ku barbaaray dhul gaalo
ayaa lii dhiibay ururka haweenka markaa maaragtay BRO la dhihi jiray dabcan ururka wuxuu required garan jiray inaan dibadaha aado waxaanan ahayn dowlad ahaan dowladda kacaanka waxay ahayd dowlad u janjeerto xagga shuuciyada socialism oo maaragtay aanan cilmi ku dhisnayn oo aanan dadkana u bisnayn ama tacliinteeda aanan haynin ayay dowladda Soomaaliya adabgaraysay marka aad dadka shuuciyada la socoto dabcan influence-koodii ayaa aad ku gaaray waxa markaa shuuciidnimada iyo dowladda maxaa wadamada galbeed waxa aad ugu muxuu ahaa caan ahayd dumarka in la simo qaasatan markii dagaaladii koobaad iyo dagaaladii labaad laga soo noqday waxa la arkay haweenkii inay xubin yihiin firfircoon ama goobihii maartay shaqooyinka looga tagay intay ragga xabiga ku maqnaayeen marka in la simo oo yaani ragaba laga hormariyo ayay maartay adopt gareeyeen anaga as a muslim state oo dal maskiin oo soo karaya dabcan dal galbeed ama shuuci talaabaday qaadeen anaga ma qaadi karin laakiin waa isku daynay waan ku dayanay ururka haweenka markaa waxaa jiri jirtay shirar aan aadno Moscow New York meel walbo United Nations baa waxay markaa soo saartay baaq waxay ku magacaawday sanadka 1975 International Women's Year sanadkii caalamiga ah haweenka adduunka oo la simaayay marka saddex qodob waaweyn baa la soo saaray equality sinaan development horumarin iyo peace nabad dawlad walba iyo urur walba oo haween yaani waxaan ahayn sponsor by the United Nations marka arrin dawladeed bay ahayd ma ahayn wax urur iska wataan guddigii loo magacaabay International Preparatory Committee la dhijir guddiga diyaar gareynaa sanadka 75 ayaan member ka noqday waxaana gacanta haysay Valentina Tereshkova oo ururka haweenka madax u ahayd يعني أنا waxaan hayn dad la wato صح oo ka tirsaneed marka United Nations iyada waxay ka tirsaneeday waa naag Central Committee ka tiib oo irka tagtay satellite maxay dayax Tereshkova dumar badan oo waaweyn oo United Nations ka shaqeynaa Helvisi bil naag liira dumar badan oo waaweyn baa jiray marka halkaasaan bartanka u galnay package-kii baan soo qaadanay waxaan nimiday wadankii waxaan markii dambe noola kala qaybay region walba Africa Asia inay shirar regional qaataan Soomaaliya lagu qabtay shirka oo preparatory committee ee maamulaysa dhinaca kalena waxa socday sharci oo la yiraahdo ahwaalo shakhsiya ama sharciga qoyska oo muddo badan buu ku dhaxmeermeeraysanay dawladaha Carbeed oo Islaamka oo laakiin u janjeera hanti wadaag waxa kamid ah Suuriya waxa kamid ah Iraq Cadan marka waxa la yiri in ahwaal shakhsiya ama statuto personale ama sharciga qoyska qof walba si ha u yaqaanay afar qodob buu ka koobnaa qodobka socialka oo yaani xadidaad la xadidayo in ragga iyo guurarka iyo yaani cadaalad darrada dumarka ku dhacayso waxyaaban hadda maanta la wado kootada iyo adduunka iyo qoyska maartay sinaantiisa in la sineeyo qodobka afaraad wuxuu ahaa qodob aad xasaasi ah wuxuu ahaa dhaxalka qodobka dhaxalka in gabadha iyo wiilka ay u siman yihiin wixii dhaxal iyo wixii xuquuq ah yaani bulshada ay ka tirsan anaga urur ahaan ma wadin wasaaradda cadaaladda wadi jirtay Cabdisalaam Sheekh Xuseen oo biriga ka ahay wasiir Sheekh Xasan Cabdullaahi Allah u naxariiste oo markaa maaragtay xubin weyn ahaa xagga diinta Maxamed Aadan Maxamed Sheekh Ismaan guddi bay ku jireen anaga nalama maaragtay weydiin anagana to be honest dumarka Soomaali waxaan ahayn dad aanba u baahneen markaan runta ku sheego in sharcigaana lagu dabaqo because dawladihii muslimka ah oo shuuciyada ah way fiiriyeen qodobada si carefully baa loo istadigaray waxa la yiri Ilaahay baan u dhaceynaa xuduudkiisa marka si silent ayaa qodobka afraad looga haray ducaalo anaga laakiin umada Soomaali tafsiir badan ma aqoonin quraankana wuu ku yaraay shuucinimana waa nahaysay yaani kama faa'iideysan dawladii Carbeed maxay yiraahdeen waxaan dhahnay ilaa waa in maartay la hirgeliyaa sharciga wasaaradda cadaaladda wadatay marba alla ilaahay ureeji
muxuu ahaay oo aheeday gudoomiyaha jaamacadda gabadhii Soomaaliya ugu horreysay jaamacad ka baxday iyo anaga noola yeeray iyo nuurto xaaji xasan Allah u naxariiste maxaa ka qabtiin baan leeyahay way anaga opinionkaygu wuxuu ahaa anaga wiilasha Soomaali iyo gabdhaha Soomaali meel bay ku wada koraan segregation ma qabno lama kala soo taboo ma jiro gabadhii wiilka iskool bay wada dhigtaan waxaan doonaynaa sinaantayna inaan ku gaarno meritocracy karti maxaa kartidaas marka looga baahan yahay in dumarkii wax la baro in la hormariyo in aqoon loo yeelo ay ku shaqaysan karaan waad ogtahay Ingiriiska equal pay mishaarada waxa la sameeyay maxay ahayd 1975 sinaanta ragga iyo dumarkana 1929 ayaa la sameeyay waa dawladii waaweynaa marka anaga waxaan dhahnay sharciga runtii markaan ku sheego waxa uu yahay iyo diino qusayna anaga ma naqaano aniga personally gabdhaha kale kama sheekeen karo way qof Europe ku kortay baan ahay iyo boarding Talyaani laakiin waxaan iska jecleen inaan anaga ku gaarno sinaanta ma garatay anagoo dumarkii maartay horumar kacaankana wuuna jeclaa way xubintii ugu weyneed oo taageerayso ayaan ahayn xagga haweenka waxa dhacday marka maalin baa waxa la yiri qabsada maalinta haweenka 5 kama yahay annagana Soomaalida dumarkeen waxaan maalinta haweenka ee dumarka Soomaaliyeed waxaan ku beegnay 11 Janaayo 11 Janaayo sidaad ogtahay waxay ahayd maalintii ha noolaatada leegadii ay dagaalamaysay oo gabar xawata kale yiraahdo lagu dilay bartamaha xamar oo gabdho badan oo maartay Soomaaliyeed oo qaar hadda nool timir ukaashi la xirxiray marka munaasabada ayaan maartay dooranay symbol ahaan 11 January 11 January way package United Nation kana waan wadanaa golaha sare aan tagnay maxamed siyaadan u geynay waxaan dhahnay arintaana jirto waxaana doonaynaa baan iri inaan dabaal degno okay go ahead waxaan sameynay ololo cajiib ah gabadhii pilotka ahayd tii taqtarada ahayd tii askariyada ahayd name it all walk of life yani dhinac walbo oo nolosha bulshada gabdhihii ka tirsanayaan waxaan sameynay banaanbax weyn oo stadio Koni la isugu tagay gabdhihii baareed bay galeen xubin walbo dumarkii Soomaaliyeed hidii dhaqankii bay muujiyeen gabdhihii mutacalimiinta ardaydii gabdhihii secondary-ga dhigana adigu meeshii waxa ka dhacay dowladtus cajiib waana ka marxay stadiumka marka intaan la imaan ayaa waxa dhacday golaha sare oo kacaanka uu maxamed siyaad hogaaminay in la yiri war maanta dumarkii baa dabaaldega United Nations waxay soo saartay qodobo maxaan u qaban karnaa lagama fiirsan sharcigan hala aqriyo sharcigan mihirgeli karaa يعني emotion با maamulka dhan dalka emotion baa lagu maamulay waxa yiraahdo baas marayna sharcigan just like that heerka qoys way wuxuu yimid goobtii buu yimid madaxweynihii iyo nimankii golaha sare kacaanka kulligood iyo golihii dawladda khudbada la qaatay aniga furay personally waxaan maartay in yar brief yar siiyay in maartay sanadkan uu yahay sanadkii ururka haweenka markii dambe xasan abshir baa gadaashay qaatay oo duqa magaalada ahaa ani asaga labada dhinac baan kaga taaganahay madaxweynaha bartankeenu taagan yahay markii xasan abshir ku soo dhaweey madaxweynaha hadda stadiumkana madax mahane wax kale meel banaan oo muuqdo ma jiro waa bari adiga wax kasta sheeg madaxweynaha khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn adduunka laga maqlin caalam islaam annagana nagu noqotay surprise ma garad yaab ma ya farxad iyo surprise wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay hay wacdaaba dambe sheego waan ag taagnaa wuxuu yiri maanta haweenkii buu amaanay wuxuu yiri waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkii buu kondaam gareeyay wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraahdo nus ma jirto ma garatay wala rubac wala tumun ma jirto rag iyo dumarka waa simanyiin maxamed siyaad barre kuma u ekaysanin intaa annagana farxad baan la dilaaci rabnaa mashaarid laakiin wuxuu galay bad kale oo annagana qusayn wuxuu yiri bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa 1975
intaanan rasuulkeena maxaa la sallallahu alayhi wasallam imaan gabdhaha waa la aasi jiray carabta quraysh quraankii baa yimid weyn ma had ka gaadhay waa laga mamnuucay ayad baa ku soo degatay intuu sheegayay okay bay ahayd wuxuu yiri muxuu ahay ayad walba events ka marka imaanay ayaa bedelaysa virtually quraanka boqolkiiba cotton waa isbedelay buu yiri ma garat haddana waxaan marinaah uu yiri 21st century qarnigii 12 ha 1975 baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin waaw garoonkii dhan baa isqabsaday ma garat aniga waxaan ku dhawaada isaga dhan intaan qabsado aan dhulka shaka buuxiyo mana garanaynin anaga sharciga qoyska xagga baabka iyo islaamka ama diinta weegi ku xiga banaan bax weyn baan sameynay qamiistan banaan baxnay jimcaheedii oo masaajidii xamar la isugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday waxaa qabsaday dhalinyar masaajidii bay qabsadeen waxay tarjumeen khudbadii madaxweynaha oo sideedii aan waxba lagu darin waxaa meesha maartay ka dhacday marka dood diineed oo madaxweyne muslim oo islaan oo ulil amri islaan ayaa wuxuu yiri ragay dumarka waa siman yihiin ilaahina nama simin khudbadan madaxweynaha tiriye halkiiba maartay waxaa ka kacay buuq maalinta maxamed siyaad ceel jaalow jiray markiiba taar baa loo diray waa la ogeysiiyey magaaladii waa laga qabsaday magaaladii waa laga qabsaday amar baa la bixi bulsi mataar inay masaajidada gasho oo mikrofoonada demiso oo dadkana dareeriso oo wixii khudbadeynayna la soo xiro sidaaba waxaa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxaa la geeyey maxkamadda waxaan kaa kale iloobay 1971 kacaanka kan wuxuu ka soo guursaday Suudaan sharciyo la dhihi jiray 26 article qofkii banaan baxa waa dil qofkii hebel waa dil wax alaale wixii subversive oo dawladda ka soo horjeedo waa dil article 54 waa tay maaragtay waa tay ragii golaha sare dhexdooda lagu apply gareeyo Allah u naxariisto salaad gabeeri caynaashay dheel ay maaragtay ku dhacday falaadha sharcigaas oo ahaa marka sharciga wadanka yaalo dawladda sharciga bay u tiigsatay wadaadadii waa dil baa lagu xukumay mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururadii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahay culimadii ugu waaweynaa hataa Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual aniga xasan abshir waa ag taagana wuxuu yiri been baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumay waa kuwee war culimadii dalka xukumtay waa kuwaan hortayda safan Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dilay waa war dhalinyaro saqraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda galiyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta ma aqoon laakiin hal nin oo wadaado yiraa waa beenta hal nin wadaado yiraahdo waa qalad kidigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shacabka Soomaaliyeed ma garad marka lobin baa bilaabmay wada hadal waa loo tagay saad ogtahayne dawladii maaragtay Maxamed Siyaad golihii sare wuxuu siiyay full authority amnesty-ga asagoo leeyahay
inuu maaragtay waxyaabo qaarkood asaga power u leeyahay marka waxay ku magacaabeen full power oo in ayaga waxba ka qaban karin aniga personally waa u tago waxaa rajaalasiyaada oo sharci baan wadnaa hanooga qasin dhiig iska sii daa ama xukun isla markii jaraa'idada adduunka waxaa lagu soo qoray the bloody sexual equality in Somalia sinaantii dhiigga dhegta loo daray marka waxaa yidhi arrimahaasaan wadanaa United Nations baa wadato jaale madaxweyne inaga daa wuxuu yidhi ma idinkii dumar ahaa ragga idinla simay ee aan idinkaga hiiliyey ragga ayaa sidaa iila hadlaya wallahi waxna ila hiiliya ma lahu wadaadada waa kuwa guryaha quraanka iyo cuntada siin jirteen adee nimankaana wadkoodii ayaa meesha galay dilkii baa lagu xukumay 3 qamiistan banaan baxnay iyo qamiistii dambe iyo qamiistii ayaga jimceedii la xiray oo la xukumay adiga 26kii January 1957 waa la toogtay habeenkii marka uu biriyo kale la toogana qof walba warid buu yahay subaxii salaadii 6 baan gurigeyga ka baxay waxaan aaday jeelka General Ismaaciil Axmed Ismaaciil xaaskiisa ila socotay waxaan kaali iigay xafiiskiisaan fariisanay ducaalo waxaan iri adeero balka waran nimankii saano madaxa u luxaa asaga wuu yaaban yahay barkee inta uu asluubta ay dad un buuftiirka geynay wuxuu yiri noloshayda wali ma aan arag buu yiri 10 dhalinyaro ya saaki la toogtay buu yiri dad lamid ay waligay ma aan arag maxaa dhacay adeer wuxuu yiri horta waa diideen wixii la isku durdurji habeenkii oo dhan quraan bay akhrinayeen nin walba asagoo degan waana dhalinyaro ma ay weyneen 30 xataa ma ay gaarin nin walba asoo degan buu quraankiisa akhrisanay dardaaran ayay wada qoreen dardaarankii buu soo saaray ونو أخرناي هبل يهبل وحو يري إن الله مع الصابرين متكل وحو يري حاس كيقف مهر كذي وإنتا متكل أنا وحو يري الذين يقاتلون في سبيل الله إلهي درتي سشهداء لو دلو يعني وشهاد بوها إلهي درتي سلو دلو آية قرآن الوقف صديا لو دلو مكتا الذين يقاتلون في سبيل الله وابا هذا هنقرنا أنا to be honest أنت مركو وذي وبا مقالدي وحكير الدوق ونقول قد لما قال لابد يارو لابد اللي يرد وضعان أو ميليتريا يا مركي دولا ين أي كلا اللي حنا ين يا لابد يدبوا الدم بسكون رفتين لو فشدي هرت مقالد الدم با قريرتي قودي كد عذي إن أنا وحو كد عي حافتي وبريو تقانوعان 15 guryo la hurdo ayay mareen inanka kalena wasaaradda gaashaandhigga agteedu ayuu ku dhacay kaaga daran maryanay aan kula xasuustaa aan ku sii xasuusiyay xaafadda ay ku dhacday maalintii la dilay dadka waa loo daawasho tagay Soomaali ana kamid ahay waxa tagay goobta Ismaaciil uu istaagay anaga dhan waa wada istaagnay askartii wacay maxaa dhacay waxa la yiri diyaaradaha dhacay halkii baan gaari ka qaadanay ما كاغا شيكين كرو سيناريها ميشا يالي ما بكاغا شيكين كرو داد بدن وتقانيدنا way ku dhinteen oo waxaan ka garanaa Ibrahim Dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa aroortii horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo roob yar oo tiixtiix ayaa daay arintii markaa waxa lagu fasiray jawaabtii ugu horeysay Ilaahiga Raxmaanka inay dhacday waxaan ku sheegaa ducaalo markaa Ismaaciil markii aad u tagteen intii aan markii aad ololaha ka wadeen inaan la dilin cid walba waxay isku dayday anaga u rahweenahan ugu tagay in laga badbaadiyo waa la isugu tagay waa la diiday jaamacadda carabtu way soo gashay dadka carabtu way soo galin malaha waa laga diiday waa la diiday maxaa u sabab ahaba yaa markaa la leeyahay waxa uu diiday ama cidda u maqli waa idin dhageysan waxa sabab u aheeday mainly sidee baa layga hor yimaadaa sidee baa dawladayda yani la saga ahaa imaamkii dhamaan sidee layga hor yimaadaa haddina way jirtay ducaalo waqtigana waa jiray laakiin waxaan ku sheegayaa inta dhaceysay culimadii Soomaaliyeed ee aqoonta lahaa shicibkii Soomaaliya
garanayay waxaan cidna may hadal cidna may hadal alle waxaan xusuustaa hooyadii Allah u naxariistaa waxay tiraa naa ilaahay nama simin naagay fadhiiso ilaahay nama simin kasana hooyo maxaad ku hadlaysaa hooyo naa ilaahay nama simin hooyo waxaan ka har arrintii sidii bay ku dhacday ragii waa la togtay waxaa nagu dhacay embarrassment shirkii New York markaan tagnay oo la yiri dawladda Soomaaliya human right ka ba haysato waxaan bilaabay aniga personally inaan maaragtay isdaafacno annaga ururkeena haweenka shaqo kuma laha ragaasna waxay ka hortageen 26 article adiga ceenka kamid baan ahayn wixii dhacay mas'uuliyadeeda ummadda Soomaaliya dhan baa mas'uulka ah waxa ka dhashay horta aniga Maryan ahaan 2 bil kama dambeeynin wadaadadii shaqadii weynadan haay somehow adiga ama mucaaradnimo haata ama iska hor imaad dawladda oo Maxamed Siyaad ilaa anaga isagaana xukumayay BRO adigu somehow ilaahay maartay waa iska hor imaanay maadaama dawladna ku jiray waa la iga xishooday 4 darbiyo madaxweyne ku xigeenka adigu gurigayga baan ku laabtay adduunka cid aanan sanction nagu sameeyay caalamka maxaa islaan ma jirin sharcigii qoyskana oo loo dhintay waa hirgeli waay magacyo badan loo yeelay cali xiliin baa loo yeelay dumar baa maxkamadaha la geeyay adigu ilaahay qudradiisa sharcigii meesha waa ka dhaqaaqi waay maalinta caradii rabbi sidaan aniga hadda taariikhda yaani u soo arkay caradii ilaahay ee kaga dhacday Soomaaliya ee qof islaan oo Soomaaliyeed daafici waay ayaa dhacday ducaalow maxaa kamid ah markiiba horta waxa bilowday 1975 horta waxa la ruqsay wax alaal wixii DG sheegto iyo safiiro oo administrationka civil service ka koorkiisa intii ugu qiimaha badneed oo ugu cilmi badneed 5 iyo 7 agaasimayaal guud iyo mareeyaal yaa hal maalin laga taqalus korneeladii waaweynada wadanka ruushka 1963 markay Soomaaliya ka carootay OAU foundationkeedii Ethiopia ayaa Soomaaliya galbeed leh oga caraatay armamentki aan galnay ay Soviet Union sponsor noo aheeday ayaa korneeladii iyo askartii la soo tababaray ayagana waa ruusay oo Afrika dhan aan ugu quwad weyneen ayagana waa laga taqalusay waxa loo diray meel la foof la yiraahdo iyo tacliin iyo kacan diidnimo ka soo maartay brainwash halkaas loo diray halkaas ka bilaabatay muddo dabadeed waxa dhacay xisbigii hanti wadaaga la sameeyay markii dambana waxa la istusaalay dawladda Soomaaliyeed in Ethiopia markuu Mengistu Haile Mariam ka dhacay maxay ahaday Haile Salaas markuu dhacay oo inay yaro military qabsaday oo crisis galay dawladda Ethiopia ay gashay crisis inaan ka faa'iideysano janska watan la isku qaaday ruushkana raali kama ahayn adigu watan lagu baaba'ay wax ka soo harayna way yaraayeen aqoontii militariga ragii waday way ku dhamaadeen soo noqodkiina waxa dhalatay diidma dhalatay Hargeysa waxa lagu toogtay 6 maartay sarkaal diidma bilaabatay ragii kale xamar tagay waxay isku dayeen inqalaab diidma bilaabatay ayagana fagaara xamar baa lagu toogtay maxaad u maleysay 10 wadaad ya marka fidnadii soo bilaabantay 75 halkaas ka wadato sidaan aniga aan interpretation ay igu la muuqato marka 79 kaad maraysaa iyo markii inqilaabkii xataa la isku dayay inqilaabkii la isku dayay 17 wiilo military ah geedka la saaray jabhadii soo dafbaa maartay abuurantay baraakadihii iyo bari iyo Puntland population koodii baa maartay la baabashay adigu disaster oo mid walba mid kale ka dambeeyo waxa ku xigtay marka haddana silsiladii Somaliland Soomaaliya waqooyi in iyadana maartay dawladii daafici lahayd cadawga ka daafici lahayd inay magaalada shicibkii maartay ay ku garaacdo in the meantime aniga Maryan ahaan ilaahay hadaayad buu igu soo riday way adiga ku dhacday aniga kala ku dhacday wadiga yiri shaqadii horta markii baan shaqadii waan ka fariistay adigu ilmo daldalo iyo maartay house hold baan noqday wadaadkii markii la xiray ayaan masaajid galay
sheekh cali suufi ka soo horjeeda odaygaagii baa la xidhay Ha. madaxweyne ku-xigeenka Ha. oo isagana iska hor marka shicibkii baa noola keenay moogtahay adaa markaa dabaqadii sare waana laga soo ba xisaabtaadii baad gelisay oo markaa marka baada isku diray maya odaygii mise maya mise waxaad adigu leedahay- adigu dee asaga naftiisa diidmadow galay sax diidmadow galayoo yacni daacadnimadii iyo dowladdii uu qabtay runtiina waan ku cambaarayn jirnay annaga dadka wixii ka dhacay golaha sare kacaanka member baa ka tahay haddii kale markaasaad diidi lahayd yacni family ahaan annaga maaragtay isku tuuri jirnay arrinka asagana diidmadii buu galay oo concern buu ka noqday aweer wixii waqooyi iyo maaragtay iyo dagaaladii wixii ka dhacay adiga markii la xiray oo aniga shicibkii maaragtay noola keenay yaan tasfiir galay maasha allah masaajid sheekh nuur la yiraahdo kaas populaar ducaalow haddii sheekadan dadka ma rumaysanayn markaas saa u fariistay dee dumarkii dugsiyada ka qaylin jiray oo yaryaraa alif wax ma la dhihi jirin kitaabadooday haystaan annagiina lagu soo kori karabaatada iyo shaatiga cadiya maxaa la baadir talyaanina waxba ma naqaano waxaana isku sheegaa markaa inaan mutacalimada والمسلم ilaahay qudradiisa waxaa laga bilaabay الرجال قوامون على النساء سورة النساء ayaa laga bilaabay anoo sidaa u fadhi waxaa سورة النساء oo ma wax nisaa liiraaha jira dee haa waabad u jeedaa oo الرجال قوامون على النساء macnaa maxay tahay nimanka dumarka waa ka sareeyaan oo waaba aayad quraan oo ilaahay sheegay haa oh my god oo maxaa sameyseen maaragtay taariikhda ya waxay ku dhacay shock oo run ah waxa igu dhacay laabtayda waxbaa ku dhacay oo yacni inaan crime weyn ka mid noqday anigu ma bilaabin waa ku jiray systemkii baan ku jiray madaxayna loo dilay rag xageen ka maqanahay laakiin anigu intention ayaga ma dilin quraankana ma aan aqoonin markaas inta gacanta taagaar ilaahayo maanta wixii ka dambeeyo 114 quraanka I take it waxaan u qaadanaa sida ay tahay xuduudka maartay dumarahan ay geysano waan qaatay horta halkaasaan 3 sano maartay quraanka baranay ما شاء الله marka niman badan oo diijiye iyo niman badan oo wadaadaha dhigan jireen marka masaajidka laga soo baxo yaan waxaan raadsan jiray dhowr oday oo habeenkii tiyaatarka safnaa adeer oo idinka og ayda quraanka الرجال قوامون على النساء واي هذا قولاتين دولة الصومالي إنه وذا ددش واي أدر سلطان جاهل أيوها لقى مخرج معك سوى قهر المي يريرا تمن كيريرا بكور تكتي يا if I had known هدان أقال لها وأن دين مركا كجرو والله بالله وانقل لها أنا جاب ساق وقرنا أهدي أن شاء الله صبرت إدردرتي إذا يقاني أو أوير أها أد أهر سدن إن هذا مستان مركا هرت إنكارت وين هالكاسي كسب بلابنت سومالي وحا بلابمي dictatorship civil wars وحنا النصيب درئه قف قرتي أو يرادو ورمحان هلاينه حكينا لقى سوق علي warba wadaadadii la toogtay toobata nasuux way furanta anigu ilaahay waxaan weydiistay afis laakiin ilaahay bay agtaala haduu biri maartay ciqaab doono in kale laakiin waa inaad ogaataa wixii dhacay inuu qalad ahaa dagaal sokeeyaa dhacay muqdisho la isku baabiyay Soomaaliland baa goosatay waxa bilowday war lord 20 sano bal ilaa yoomana hada lama nasan magaalada xamar waad u socotaa استرميس مرديني بايبدي دولتي مارتي الرادي اي هانتيس دولدنمدن واتن مارتي wareerka adduunka ku jirto marka anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaali maalinta kitaabka Ilaahay loo gafay ee aayada Quraanka la bedelay inay maartay salka ku hayso wix allaale wixiina helay maxaa ma doonayeen sheeko kale ku geliyo maryanay sax way meel adag baad qabsatay waa sax marka markii hore taariikh baynu ka sheekaynay sax laakiin iminka line gooniya yaad qaadatay oo runtii aan filayo dad badan oo ina daawanayaan inay ama markhaatiga kugu furi karaan sax ama ay wax cusub ku qaadan karaan in waxaan la garan laayahay
iyo dhibaatadan dhacday ay ma garanaysaa tahay inkaar markaad dhinac ka eegto inagu dhacday ama calo alla saa tilmaantay oo laga ducaysto halkaa ku dhaafin maaye ugu dambaystii maxaad odhan lahayd ha la yeelo imika Soomaaliya horta Soomaaliya way kala baxbaxday oo waad u jeedaa sida la isugu soo noqdane aad iyo aad bay u adagtahay ani waxaan aaminsanahay mar haddii inkaartayna ay ka bilaabato diinta oo kitaabka ilaahay loo gafay haddaan annaga ilaahay toobadana socdaan qaadano waa in ummadda Soomaaliya ay kitaabka qaadataa dowlad islaan inaan iska dayno socialismada iyo maxay ahayd qunyar socod iyo muxuu ahay demokrasiyadan maaragtay dadkii ka dhigtay dhiiranaan qof walba maaragtay oo televisionka soo istaaga inta in laga tago the only thing oo wadankan ku qabooba waxa weeye gobol walbo ama maaragtay dowlad walbo inay kitaabka ilaahay qaadato kitaabka lagu dhaqo marka aniga waxaan qabaa in la raadiyo diinta saxa oo sidii sunnadii rasuulka kaleey salaatu salaam noo faray inuu ummadda Soomaaliya ku degi karto taana waxay ku degi kartaa markay Soomaaliya dhan inta istaagayaan ilaahu naga cafi diintii aan taabanay ilaahu naga cafi midada kale ilaah baa na faraabo haddaad madax tahay udiicu Allah wa udiicu rasuulahu wa ulul amri minkum soo waxa gartama inaan islaamnimo ku dhaqanno ma inaan qaadano maxay ahaday western style okay fidnadan ad maanta barnaamijka kaga sheekaysay sax oo aad leedahay waxay ka soo bilaabantay marka culimada la laayay sax haweenka daraadood bay ka bilaabantay I know ma laga yaabo maantana fidna kale inay noo bilaabanto oo haweenkiini qabyaaladna ay ahaatay sax waxaad bilowdeen prime minister Ramadan iyo wasiir Ramadan iyo annaga kootada iyada halana siiyay iyo inay cajaladii dib u soo noqonayso ma kuugu muuqataa oo halkaana wax kale ku jiraan maya laakiin waxaan ku oran karaa horta bini aadanka hadoona aqoonta diiniga lahayn wax walba baa ka tahay ducaalo anigu maalintan arinta falka aan ka ahay member historyga igama harayso anigu diin wax liraa ma aan aqoonin soo waxaan ba aad u aqaanay western ka maartay arimooda laakiin markaad diinta barato waxaad ogaanaysaa xuduudka ilaahay ku istaajiyay sinaanta ma aha kaliya inaan rag daba orodno waa inaan marka hore kitaabka barana muxuu ilaahay ii ogol yahay aamintu billaahi ayaan iri soo ma dee marka wax ilaahay ka soo horjeeda miyaan wadi karaa waa maya although aan ogahay maanta 30 sano ugu dambeeyay ama 40 sano ugu dambeeyay ee burburkan dhacay hadaynu haweenka Soomaali ahayn ummadda Soomaali ma taagnaateen ma garatay waxa ordaa bread winner iyo waxa maartay shaqeyna ama waxa human rights ama civil society ka shaqeyna wado wixii caruurta hay gabdhihii Soomaaliya Yurub tagay ee la balanbalaa caruurta aabalaanta waa gabdhihii Soomaali laakiin aqoontii diiniga nagu yar jawaabta waxa fiicnaan leh inay ku jawaabto gabar Soomaaliyeed ee kitaabka dhameysay ee xadiidka dhameysay ee tafsiirka dhameysay inaad tira kaale walaashay gacaliso ma rabtaa inaad madaxweyne noqoto rag masaajidka ka tujiso oo iimaan u noqoto laakiin waxa jiri karta waxa jira boqol hawlad ay gabadha Soomaali qaban karto hada carabta daarati baanan oo haweenka u gaaraha jiro maamulayaasha waa haween waxa jira iskuulo waaweyn oo haweenka maamulaan waxa jira taqaatiir badan oo gabdho carbeed oo yacni hawshi yacni society-ga waxyaabo badan ka qaban karta laakiin kursiga kulul aniga waa ka soo horjeedaa gabdhaha xuquuqdooda in la siiyo oo xuquuq diineed how far ayaa darajo lay dhiibi karaa ma ahan inaan selfish noqdo oo nira ilaahay maartay maxaa ka macnay iyo sinaanta maaha war aniga waan soo maray maraan sinaan warday to be honest nadaalo waxa dhici karta gabadha Soomaali inay 100 milyan oo rag ka karti badanta laakiin aayadii quraanka ku hortaala miyad ka hortagi kartaa aayadii quraanka barlamaan waa gali kartaa oo Sheekh Dirri waa sheegeen iyo Sheekh Mustafa Ismaaciil oo muxuu ahay gurtu waa gali kartaa
ma garata oo wasiir waa noqon kartaa iyadoo maaragtay sidii gabar islaami u labisan maanta hawsha ee zamzam cabdi aadan wado waa hawl khayriye oo yacni caruur iyo tacliin ayay ka daba orday nimco qowdhan caafimaad bay ka daba orday shukri waxay ka daba orday waxaan ka wadaa somaliland bulshadii sidii kor loogu qaadi lahaa yes taas waan ogola laakiin aniga raggii iyo aniga aan sinaano ereyga equal meesha mataaldi anigu from 82 ilaa maanta waa kasoo horjeedaa aad iyo aad baan uga soo horjeedaa aad baad mahadsan tahay Marian Xaaji Cilmi waxaan filayaa in haddii ay beedmo barnaamijyo kalena kulley aan ku hulmidno aad iyo aad waxaan ku dhamaystiraa ummadda Soomaaliya ha duceysato oo ilaahay ha loo noqdo oo dadka dilka ha laga daayo powerka ma aragtay oo kursiga loo ordaaho wadaadnimada la iska gelinaana ha laga baxo diin saxana ummadda ha la baro aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa waraysigii aanu la yeelanay barnaamijkan xusuus reeb Marian Xaaji Cilmi oo qaybo hore oo xusuus reebana aad kula kulanteen Marianna aad ayuu mahadsantahay adaa mudan